السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال ولكن محمد سياد يو channel كي عدو قبرتين فافنت خيرك وعي قلنت iyo maartay wax alla wixii ummadeena u baahan tahay oo wanaagsan walaalayaal maanta waxaan idin wada qisadaas oo ah qisooyinka cibra qaadashada mudan waxaan ka sheekay qisadan Muhammad ibn al-Munkadir waxaana soo diiwaan galiyay al-Imam ibn al-Jawzi kitabkiisa al-Mawrid al-'Adb qisadu waxay ku bilaabanaysaa sidatan wuxuu leeyahay ibn al-Munkadir waxaan ahaa mid maartay fariisto tiirasha masjidka rasuulka kamid sallallahu alayhi wa sallam masjidka rasuulka ayaan maartay salaadaha ku dukan jiray waxaana ku lahaa tiir maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday roob la'aan ayaa dhacday roob la'aan reer Madiina waxa asiibtay roob la'aan aad iyo aad u baahsan markaas ay bixeen waxay sameeyeen roobdoontii markay sameeyeen way soo laabteen wax roob ah oo yimidna ma lahan markaasuu nin maartay kamida dadka magaalada Madiina degan ayaa wuxuu fariistay gadaasheeda tiirkii aan fadhiyay gadaasheeda ayuu fariistay meeshaas ayuu maartay wuxuu bilaabay inuu salaad dukado markii cishaha aan dukanay dabadeed uu istaagay laba go ayuu watay go'na hoos ayuu u xirnaa go'na wuxuu ugu xirnaa kor go'ay kor u saarnaa ayuu hoos ku xirtay midkii hoos u saarnaana kor ayuu ku xirtay kadibna salaad ayuu galay wuu dukaday ilaa uu maartay subaxii ka dareemay subaxii markuu dareemayna waa uu maartay witriyay oo witri ayuu la yimid dabadeedna salaadii subax ayaan dukanay markaasaan maartay waxa dhacday inaan baxnay marka wuxuu leeyahay markii uu bilaabay salaada oo uu dhowr rakac dukaday uu fariistay markaas uu duco u fariistay wuxuuna yiri ilaahayow dadkii xaramkaaga maanta way soo baxeen iyagoo roob dalbaay mana aadan waraabinin anigana waxaan kugu dhaaranayaa inaad waraabiso wa ana uqsimu alayka illa ma saqaytahum ya rabbi kharaja ahlu harami baytik ilaahay waxa soo baxay dadkii xaramkaaga deganaa ee reer magaalada Madiina deganaa ayagoo roob dalbaay mana aadan waraabinin anigana waxaan kugu dhaaranayaa inaad waraabiso ilaahayow markaas wuxuu yiri ninkii ducada muusan jarin gacmihiisan hoos muusan dhigin ilaa maartay waxaan maqlay buu yiri samadii oo roob keentay iyo maartay gugaca yeeray unkadka yeeray ayaan maartay meesheeda ku maqlay markii salaad subaxan dukanayna masjidkii ayaan ka baxnay masjidkii markaan ka baxnayna waxaan baxnay buu yiri waan daba kacay waxaan baxnay iyadoo meel roob laga istaago aysan jirin meel roob laga istaago iyadoo aysan jirin iyadoo maryahan kor u qaadanayno isagana sidaas oo kale marada ayuu kor u qaatay waa uu baxay waan daba galay markaas wuxuu galay buu yiri guri aan gartay oo magaalada Madiina kamid ah daar aan gartay oo magaalada Madiina kamid ah ayuu galay markaasaan maartay iska soo laabtay masjidka ayaan ku soo laabtay markii la gaaray barqinkii oo maartay qorraxda si wanaagsan u soo baxday ayaan tagay meeshii ayaan tagay albaabkii ayaan ku gargaraacay aliga furay markaasaan u tagay markaas wuxuu igu yiri maxaad maartay rabtay ibn al-Munkadirow ma xaajaad leedahay wadan baad leedahay wuxuu ninkaas sameeyaa oo meesha la fadhiya kabo khufka ayuu sameeyaa markaas wuxuu yiri ma xaajaad leedahay alaka xaajatun turiidu an a'mala laka khuffa an asna'a laka khuffa khuf inaan ku sameeyo maad rabtaa markaas wuxuu yiri ma waxa tahay ma waadan ahayn saaxiibkaygii habeen hore maartay aan masjidka isku tukanay markaas wuxuu yiri maxaa ka galay ibn al-Munkadir qofkaan ahay iyo salaadeedii wixii maxaa ka galay wuu carooday buu yiri wajigiisa ayaan ka gartay caradii markaasaan saga tagay markaan ka tagay habeenkii dambe masjidka aan imid oo meesheedii ama tiirkayga aan fariistay cishii ayaan dukaday meeshii baan fariistay ma uusan iman markaasaan isku naxay buu yiri waxaan idhi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxaad samaysay ibn al-Munkadirow oo ninkaan masjidka imaanay uu uga cararay masjidka
markaasaa maaragtay waagii markuu baryay qoraxdii ay soo baxday ayaan tagay buu yidhi meeshii albaabkii oo furan baan tegey markaasaa waxaan ku yidhi aaway ninkii meeshan deganaa waxay igu yidhaahdeen shalay adii ninkan maxaa idinka dhex dhacay wuxuu yidhi shalay toole markii aad saa albaabka uga dhaqaaqdayba ninkan wuxuu go' weyn ayuu fidsaday markaasuu maaragtay dharkiisii iyo alaabtiisii oo dhan meesha ayuu ku gurtay waa uuna dhaqaaqay wuxuu leeyahay waan raadiyey magaalada madiino daar aan garanayo ama guri aan garanayo oonan ka raadinin ma jirto ilaa maaragtay waan tegey mana aanan arag sidaas ayuuna maaragtay ninkii ku tegey walaalayaal qisadan waxay ku saabsan tahay in camalka saalixa la qarsado in maaragtay aan yacni camalkeennu ahaado khaalis oo aan qarsanno oo dadkii wanaagsana aan uga dayanno dhaqanka noocaas oo kale ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay camalkeenna ka dhigo mid khaalis ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu camalkeenna maaragtay uu nagu irsaaqo camal khaalis ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu iimaanka nagu dilo khaatimada noo hagaajiyo subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk